بسم الله الرحمن الرحيم كل wanaagsan khiyaartana la socota meel kasta oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada tabinta afraad ee guud ahaanba maanta aan idin kula wadaagayno wararka ugu dambeeya ee gobolka Bariga Dhexe oo si wada jir aad uga daawanaysan channelada Barrow Show iyo Cabdilcasiis Barrow 14 June sanadka 2026 qodobada aan idin kugu hayana waxa kamid ah dowladda Iran ayaa muujinaysa saasaan ay ugu diyaar garoobaysa dagaal iyadoo waaxda koonfureed ee wadankeeda garoomada diyaaradaha ku yaala amartay in la joojiyo dhaqdhaqaaqyada duulimaadka sidoo kalena waxaa loo sheegay diyaaradaha inay garoomo kale ay ka degaan tani waxay muujinaysaa xiisada gobolku inay bilaaban karayso daqiiqadaha fooda ay nagu soo hayaan taliska dhexe ciidamada jamhuuriyadda islaamiga ee Iran ayaa ku dhawaaqay in ay diyaar garowga ugu dambeeyay ay galeen saacadaha soo socdana la maqli doono jawaab kulul oo ka baxaysa dowladdaasi taas oo ku wajahan Israel iyo waliba saldhigyada Mareykanka ee ku yaala gobolka Bariga Dhexe ilaa iyo hadda maxaa laga yaqaanaa goobaha suuragalka ah in la duqeeyo oo dowladda Iran ay isku diyaarinayso dowladda Iran waxa ay sidoo kale hogaamiye sare u hadlay oo qaabilsan malafka wada xaajoodka Maxamed Baaqir Qalibaf ayaa waxa uu ku tilmaamay in dalka Iran aanu ka jawaabi doonin uusan ka aamusi doonin baleeri tallaabooyinka tacadiga ah oo Israel ay ku dhaqaaqday wixii hadda ka dambeeyana hakad ay gelinayaan heshiiska ay la galayeen dowladda Mareykanka tani waxay ka dhigan tahay Trump in uu la kulmayo fashil dhinaca heshiiska la taliyaha hogaamiyaha sare ee dowladda Iran ninka u qaabilsan Mujtaba Khamenei la taliyaha waxa uu leeyahay waxaan cashar adag u dhigi doonaa cid kasta oo isku dayda inay ku soo xadgudubto wadankeena sidoo kale gudoomiyaha golaha sare ee amniga qaranka wadanka Iran ayaa isna hadda war soo saaray muxuu sheegay warbaahinta qodobadaas ayaan ku faaqidi doonaa xiisada caawa kululaanaysa ee ka taagan gobolka Bariga Dhexe iyadoo saacadihii ugu dambeeyay ee diyaar garowga jawaabta Iran la filayo in hadda lagu guda jiro sidee wax u socdaan arrimahaasi ayaan rabaa inaan idin la wadaago khiyaarta ay nala socotay oo aan ku lafaguro tabintan meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada kuna soo bira YouTube-ka dhamaantiinba ciidamada ilaalada kacaanka jamhuuriyadda islaamiga ee Iran iyo taliska isku dhafka ah ee ciidamada howlgalka ee ku yaala Tehran ee la yiraahdo Khatamul Anbiya ayaa soo saaray war degdega oo ku saabsan jawaabta military ee dowladda Iran ay ka bixin karayso weerarka lagu qaaday aaga koonfureed ee magaalada Beirut ee caasimadda wadanka Lebanon halkaas oo ay ku sugan yihiin ururka xisbiga isla markaana Israel ee wada duqeymihii ugu adkaa caawa oo dunida lagu waday in ay marqaati ka noqoto heshiis weyn oo dhici rabay hadda waxa soo baxaya isbeddello waaweyn durbaba in ay soo kordheen taliska Khatamul Anbiya ee dalka Iran ayaa muujiyay hanjabaado military oo culus kadib markii xiisadaha sii kordhaya ee gobolku ay cirka isku shareereen qoraal lagu baahiyo bayaan ay soo saaray taliyaha xarunta ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay si buuxda u feejigan yihiin isla markaana ay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan waxa uu ku tilmaamay gardarrada cadowga ka timid iyo tan ka iman karaysaba marka dowladda Iran ay jawaab bixiso sargaalkan ayaa sidoo kale sheegay in afarta ay ku hayaan keebka gantaalaha isla markaana ay ku sugan yihiin baaliri ama ay sugayaan qalad cadowga uu sameeyo si ay uga jawaabaan weerar adag oo aan la ilaawi karin hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli gobolku uu ku jiro xaalad kacsanaan military oo sii xoogaysanaysa taas oo ka dhalatay isweydaarsi hanjabaado iyo weerarada hawada ah oo u dhaxeeya Israel Iran iyo xulufadooda gobolka waxana hadda muuqanaya Iran in ay taxadir dheeraad ah ka qaaday dhinaca duulimaadka iyo garoomada diyaaradaha ee wadankaasi sabab la xiriira isbeddello la filayo saacadaha soo socda in ay dhacaan wararka ka imaanaya ee gobolka ayaa muujinaya in nidaamka dalka Iran uu qaaday tallaabooyin taxadir leh oo la xiriira amniga hawada xilli ay soo kordhayaan xiisadaha gobolka wakaalada wararka ee Tasnim ayaa sheegtay in dhammaan duulimaadyadii ka bixi jiray garoomada diyaaradaha ee galbeedka Iran la hakiyay ilaa ogeysiis dambe go'aankan ayaa lagu micneeyay inuu qayb ka yahay tallaabooyinka amni ee lagu sugayo badbaadada hawada ee wadankaasi Iran
si kastaba ahaatee wakaalada wararka Al-Mehra oo soo xigatay hay-adda duulista rayidka Iran ayaa waxay sheegtay in aan weli si rasmi ah ogeysiis dhammaystiran notom loo soo wada saarin baa layidhi xaalad lagu mamnuucayo duulimaadyada guud ee dalka. kala duwanaanshaha wararka ayaa keenaya su'aalo ku saabsan heerka saxda ah ee xayiraadda, inkasta oo ay muuqato taxadir aad u badan oo ku wajahan galbeedka dalka Iran, kuwaasi oo ku dhow meesha ay ka taagan tahay xiisadda amni ee sii kordhaysa. la taliyaha sare ee Mujtaba Khamenei, hogaamiyaha sare ee wadanka Iran, ayaa ku dhawaaqay dalka Lebanon inuu yahay ruuxda iyo nafta ku jirta wadanka Iran, sidaasi darteedna aanay ku dhowran karin tallaabooyinka Israa'iil ee qaadaysa ee ku saabsan weerarada isdaba joogga ah ee lagu hayo xaafadda Daahiya ee ku taalla koonfurta magaalada Beirut, halkaas oo saacadihii la soo dhaafay dhinacyada ishaya ay si weyn isugu weydaarsanayeen madaafiic iyo waliba duqeymo aad u xoogan, lana soo warinaya khasaare soo gaaraya dadka rayidka ee halkaasi ku sugan. Mohammed Mokber oo ah la taliyaha sare oo ka tirsan xafiiska hogaamiyaha sare ee Iran ayaa soo saaray hadal adag oo ku wajahan dhinacyada Tehran ay u aragto in ay qatar ku yihiin amniga qaranka wadanka Iran. Mohammed Mokber ayaa sheegay in Iran ay si adag uga jawaabi doonto weerar kasta oo gardarro ah kaas oo lagu soo qaado gudaha dalka iyo deegaanada kale ee xulafadoodu ay ku sugan yahay ee gobolka Bariga Dhexe. hadalkan ayaa ku soo beegma xilli xiisadda gobolka Bariga Dhexe ay sii kordhayaan, gaar ahaan kadib weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay Lebanon iyo hanjabaadaha istaba joogga ah ay iswadaarsanayaan Iran iyo Israa'iil, taasoo hadda xiisadda loo arkay inay kor u sii qaadayso. Mas'uuliyiin badan oo Iiraani ayaa maalmihii la soo dhaafay ku celcelinayay ciidamada dalku inay ku jiraan heegan buuxa, isla markaana ay diyaar u yihiin in ay jawaabo degdeg ah bixiyaan marka la fiiriyo xiisadda taagan iyo hadda halka ay wax marayaanba, iyadoo mas'uuliyiinta dowladda Iran ay ku dhawaaqeen marka la eego xiisaddan sii xumaanaysa iyo waliba kororka dagaaladu inay yihiin kuwa haba yaraatee aan la iska indhatiri karin halka ay wax taagan yihiin. dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga ayaa sheegaya in hadalkan ay muujinayaan in Tehran ay doonayso in ay dirto fariimo xooggan oo ku saabsan inaanay aqbali doonin weerar ka dhana amnigeeda, iyo sidoo kale inay sii wadayso dhibaatooyinka ay la kulmayaanba ciidamada wadankaasi. iyadoo hogaamiyaha sare ee Iran la taliyaashiisu ay hadalladaasi soo jeedinayaan, haddana golaha amniga qaranku waxay leeyihiin xarinta Lebanon waa ka aamusitaankeeda waa Iran oo ruuxdeeda luminaysa, sidaas darteed waa in ay qaadaan tillaabooyin degdeg ah. hogaamiyaha golaha sare ee amniga qaranka Iran, sareeyo guud Mohammad Baqir Dhulfaqar, ayaa soo saaray hadal aad u adag oo ku saabsan xaaladda Lebanon iyo xiisadda sii kordhaysa ee gobolka Bariga Dhexe. Lebanon waa ruuxdeena iyo qayb ka mid ah wadankeena, ma aqbali doono in lagu xadgudbo qadadkeena cas, ayuu yiri. jawaabtu haddu waa soo dhowdahay, indhaha kor ha loo hayo, ayuu hadalkiisan ku sheegay. hadalkan ayaa muujinaya sida Tehran ay muhiimad weyn u siinayso Lebanon iyo xiriirka ay la leedahay kooxda Hezbollah ee wadankaasi ku sugan, waxaana sidoo kale ay xambaarsan yahay baa layiri digniintan cad oo ku wajahan cid kasta oo Iran ay u aragto inay ku xadgudbayso danaha dalkeeda uu ka leeyahay gobolkan. hadalkan ayaa ku soo beegmaya kadib weerarkii ugu dambeeyay oo Israa'iil ay ka fulisay duleedka koonfureed ee magaalada Beirut, iyadoo sidoo kalena dad badan oo Iiraani ah ay maalmihii la soo dhaafay ay soo saarayeen hanjabaado kala duwan oo ah in militariga uu tallaabo qaado. kormeerayaal siyaasadeed ayaa aaminsan in erayada jawaabtu ay soo dhowdahay, isla markaana ay tilmaamayaan in Tehran ay doonayso inay qaado cadaadis military oo dhinaca wadankaasi la saarayo waa Iran, si ay tallaabooyinkaasi u qaado argoosiga ah ee ka dhanka baa layiri in ay sameeyaan ciidamada dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. ninka gacanta ku haya malafka wadaxaajoodka ee u dhaxeeya dowladda Iran iyo Mareykanka
maxamed baaqir qaalibaaf ayaa ku dhawaaqay in ay ka cabsi qabaan in dowladda Iiraan ay dib uga laabato dhammaan qodobadii heshiiska ee lala galaya dowladda Mareykanka kadib markii saacadihii la soo dhaafay ay kordheen tacadiga iyo weerarada ay la kulmayaan ciidamada dowladda ee Iiraan marka laga yimaado kuwa ururka Xisballah ee gacan saarka la leh dowladdaasi Iiraan waxna uu ku dhawaaqayaa marka xiisadu ay hadda halkaasi gaarto inaanu jirin wax ay xeerin doonto dowladda jamhuuriyaddaasi islaamiga ah waa Iiraan kadib duqeyntii ugu dambeysay ee Israa'iil ay ka geysatay xaafadda Daahiya ee koonfurta magaalada Beirut ayaa gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan Maxamed Baaqir Qaalibaaf waxa uu ka digay weerarada uu si toos ah halis u gelinaya baa la yiri si socoshada wada hadallada diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya dowladda Iiraan iyo waliba Washington Qaalibaaf ayaa sheegay in duqeynta laga fuliyay baa la yiri ama la fuliyay iyadoo loola jeedo in qadka cagaaran uu Mareykanku bixiyo taas oo ah in amarka duqeyntu ay ka timi dhinaca iyo waliba dowladdaasi Mareykanka kaliyana Israa'iil aanay si iskeeda u qaadin tillaabooyinka ka dhanka Beirut isagoo ku dooday baa la yiri wararka muujinaya in Mareykanku aanu lahayn rabitaanka ama awoodda uu ku fuliyay ballanqaadyadii hore ee la xiriiray ka fogaanshiyaha bartilmaameedka Daahiya wariyaha Al Jazeera ee Tehran Umar Hawash ayaa sheegay in digniinta ay ku soo beegantay baa la yiri xilli xiisadu ay ku sii sugnayd mowqifka rasmiga ah ee Iiraan ee ku saabsan heshiiska is-afgaradka ah ee dhawaan la diyaariyay kaasi oo ay ku jirto qodobo si gaar ah uga hadlaya xaaladda waddanka Lebanon dhinaca kale wafdi dhaxdhaxaadinta ah ee ka socda Tehran ayaa gaaray Qatar ayaa gaaray Tehran si ay u furaan wadada wada xaajoodka ee hakadka galay wafdigan ayaa la filayaa in uu kala hadlo dowladda Iiraan arrimaha lacagaha Iiraan ee dibadda uga xayiran iyo sidii loo heli lahaa damaanad qaad dhab ah oo lagu xaqiijinayo fulinta heshiiskan muhiimka ah wararka soo baxaya ayaa sidoo kale lagu sheegay in Israa'iil ay hore ugu wargelisay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM la yiraahdo qorshaha duqeynta ka hor inta aan la fulin arrintaasi oo sii korortay sharkiga Iiraan ee ku aadan doorka Washington ee dagaalkan waxaana hadda xiisadu ay u muuqanaysaa in aanay ahayn mid sahlan marka la fiiriyo sida caawa xaaladdu ay u adag tahay fid wanaagsan qiyaarta nala socota ay tabino kale ayaa noo soo socda aynu ku eegi doono xiisadaha sii kordhaya ee gobolka iyo waliba culeysyada sii beeraya ee taagan meel kasta oo aad joogtaan ha ilmaamina YouTube-kan inaad subscribe saartaan share gareysaan muuqaalkan saaxiibadiina aad la wadaagtaan soo dhawaada